wax kasto la eego nolosha dunidu waa dabkee hadduu dabkii dhaxmoodo maxaa lagu diiriyaa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صباحا ساكية ugu horeyn waxaan salaamayaa dadka muuqaalkayga hadda aan diyaarinayno daawan doona oo jooga gudaha dalka Soomaaliya iyo dhammaan qaaradaha adduunka oo aan ogahay in uu gaari doono iyo dhammaan laamaha dawladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dhammaantiin marka waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu muuqaalkan saakay waxaan u duubay inaan ku qanciyo oo iiga baahan qancin dad badan oo ah taageerayaashayda iyo dad kale oo Soomaaliyeed oo samaha aad u jecel iyo dawladnimada ayaan ugu talagalay in ay fiirsadaan qof ahaan waxaan ahay Khadiija Maxamed Diiri mas'uuliyad ahaan waxaan ahay xildhibaan waxaan ahay wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga Soomaaliya sida la wada ogsoon yahay ama aad ka aragteen baraha bulshada aniga waxaan hore u fiirsaday idinkuna aad ila fiirsateen 4 bishan Febraayo wasaaradda caafimaadka oo garoonka aadan Cabdulle Cismaan Allah u naxariisto garoonka aadan cadde baaris caafimaadka bilaabay su'aal ayaa ka taagan meeshaas oo ah sidee u ekeyd ama u ekaayeen shaqaalaha iyo dhaqaatiirta caafimaadka ee baaristaas caafimaad ka bilowday garoonka aadan Cabdulle Cismaan sidoo kale dawladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo dadkeeda wasaaradda caafimaad iyo shaqaalaheeda iyo dhaqaatiirteeda nooma soo gudbin oo ma ogin baraha bulshadana lagama sheegin in coronavirus Soomaaliya laga helay bilcaks waxay xaqiijiyeen inuusan dalka ka jirin waxtaa iixiga muuqaalka imaashahayga laga soo gudbiyay ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa media advisor-ka wasaaradda igala shaqeeya la taliyaha wasiirka arrimaha warbaahinta iyo cameraman-ka ila shaqeeya muuqaal ahaan iyo sawir ahaan way ila wadaagaan iyo agaasimaha waaxda ICT-ga waxa howlaha wasaaradda ku saabsan ee la dhigayo page-ka wasaaradda page-kayga gaarka ah iyo Facebook-kayga waxaan ku faraxsanahay sida ay uga shaqeeyaan waaxda ICT-ga agaasimaha Ayuub iyo la taliyaha hayga arrimaha warbaahinta oo ah qabiir asagana Maxamed Shuuri iyo jiro yare cameraman-ka aan ku qanacsanahay aniga ka wasiir ahaan waxaa wafdiga maalinta imaashaha dalka nagu soo dhaweeyay garoonka wasiir ku-xigeenka wasaaradda xildhibaan Axmed Cumar Islaaw iyo agaasimaha guud iyo waxyaha la taliyaasha
iyo mudanayaal kale oo ka tirsan golaha shacabka garoonka iyo wixii ka dhacay sida la wada ogsoon yahay calaamadaha ay wateen dadkaas waa shaararka ay gashadaan injineerada dhismaha ama markii xaalad degdeg ah ama masiibo dhacdo ama gurmad uu jiro mar haddaysan wasaaradda caafimaadka wax caabuq cudurkaasi la sheegay ah uusan dalka ka jiro mar haddaysan xaalad degdeg oo caafimaad jiro bilowgii 4 Febraayo sida baraha bulshada laga arkay ay ahayd dhaqaatiir iyo shaqaale u tababaran in garoonka ay ku bilaabeen maxaa isbedelay taas wasaaradda weydiinaysa iyo shaqaaleedii dhaqaatiirteeda ma baraha bulshada kaliya ayaa disaankaas la tusayay hadiise loo baahan yahay munaasab ma ahayd meesha aan ku soo degnay aniga kulli waxaan ugu horeeyay dadkii